بسم الله الرحمن الرحيم دمان أمد الصوماليات ملك استوى تشوكتان قداء يدبد وحنا دكو سلام يا سلامة السلام وقالسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاديا دقن ومان لهين إنان كاميرا كلي جاي أصوف فريستا أنا أما دود كتيرة أما برنامج انترفيو كتيرة مويانة ما أنت واحد يقول كلفي وحنا دوان دقيستي انترفيو لقى قاعدين وضيع برايم مينستر هانشري oo xildhibaan ahaan jiray oo la yiraahdo oday maxamed cabdi yuusuf wuxuu ahaa nasiib daro hadal naxdin naxli nacayb colaad aad u fog ku salaysnaa oday maxamed cabdi yuusuf oday Soomaaliyeed weeye dhaqanka Soomaalidana ninku oday markuu yahay wuxuu ka shaqeeyaa isu soo dhaweyn beeldaajinimo wuxuu ka shaqeeyaa nabadeyn wuxuu ka shaqeeyaa inuu dadkiisa isku wado cimriga uu yahay xildhibaan maxamed cabdi yuusuf oo maanta 80 hadaanu 9 bacaga cagaynayn wuxuu ku hadlay waxa ahayd wax aad iyo aad u foolxun naxdin ku riday iyo argagax dad badan oo kamid ahay warwal badan abuurtay loogama fadhiin la isma lahaynin odaya intuu kamera soo hor fadhiisto ku hadlaya wuxuu ku hadlay waqooyi wixii ka dhacay wax taariikhaysan bay ahayd wax laga hadlay bay ahayd wax laga qoray bay ahayd wax haddana uu madaxweyne farmaajo anoo ku hambalyeynaya uu ka bixiyo apology ayay ahayd si dadku isugu soo dhawaadaan oo dadka nacaybka iyo dhibaatadu ay uga suusho oday maxamed cabdi yuusuf loogama fadhiin maanta inuu ummadda Soomaaliyeed kala irdheeyo oo waxaan jirin halka la soo fadhiisto oo aflagaado iyo maxay tahay hagardaamo uu la soo fadhiisto waqtigaas uu ka hadlayo waqtigaas waa qaadan lahayn hadii uu maalinta ka hadlo arimahaas laakiin maanta oo ummadii Soomaaliyeed soo midoobaysa waxaad moodaa inuu ujeedo gaar ah uu ka leeyahay waxa laga rabay inuu garaad iyo aqli masabka uu gaaray inuu ku shaqeeyo ma dhicin nasiib daro Soomaalidu waxay tiraahdaa cimri taga ceeb lagu ma sagootiyo maxamed cabdi yuusuf cimrigiisa ceeb buu maanta ku sagootiyay taariikhna uu ka tagay duuban oo cad ummadda Soomaaliyeed ummadda Soomaaliland waxaan leeyahay Soomaali waa mid dadku waa walaalo dadku way isku mid waa la isku dhacaa waana la heshiiyaa wada hadalna wuu socdaa dhalinyarada waxaan leeyahay waxba yaan dhag loo jalaqsiin arrinkaasi arrin ka suuragal ummadda Soomaaliyeed ee walaalihiina maaha waa nin iyo ra'yi shakhsi kaligiisa asagana waxaan ka codsanayaa ama aan leeyahay waxa kula haboon inaad maanta apology ka bixiso arrinkaas in aqligaaga uu soo dago in aad ummadda Soomaaliyeed ee aad bamka dhexdhigayso aad intaad ka noqoto tiraado waa qaldamay ee raaliha layga noqdo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh